أهلا السلام عليكم أصحاب تسلا Somali Technology maanta waxaan idin wadaa cashir ku saabsan sida loo sameeyo simple calculator. How to make a simple calculator so using C language. So koodkaan is idiga faa'iideynaa asxaabta. Okay, so waxaan soo furanayaa code block si aad ugu isticmaasho koodkaaga oo C language. So la socod wanaagsan asxaabta. So hadda waxaan leenahay markii la isticmaala calculator macnaha calculator wax loogu talagalay in wax lagu xisaabiyo sida xisaabta addition, subtraction, multiplication iyo division-ka. So xisaabta basic ah. So hadda calculator oo simple ah oo afartaas xisaab lagu xisaabiyo hadda sameynaynaa. So isla socod wanaagsan asxaabta waxaan leenahay press 1 for addition. So asxaabta waxay ku bilowday addition Soomaan. Press 1 for addition. Okay. Line kan copy ku sameynayna. Okay. Paste hadana leenahay. Again hadana paste. Again paste. Yeah. So dhaweynayna. So line koowaad waa addition sa u jeedin. Line labaad waxa ka dhiganayna subtraction, multiplication ka kale. So division. Okay. 1 ka 2 aad u bedelay press 1 for 2 for subtraction. So subtraction. Okay. Press number 3 waxaan ka dhiganaynaa multiplication. For multiplication. Isku dhufasho. Multiplication and power on there. Also division. Okay. So hadda way noo dhantahay asxaabta. Hadda waxaan soo qaadanay output-keeni oo ahay press 1 for addition, for subtraction, for multiplication and for division. So hadda waxaan qaadanaynaa this is waxa loo yaqaanaa macnaha output. So waxaan qaadanaynaa meeshan variable soo qaadanaynaa loo yaqaano int ama integer. So waxaan leenahay int and so waxaan ku sameynaynaa waxaan u isticmaalaynaa input ahaan u isticmaalaynaa yani input ahaan u isticmaalaynaa macnaha reading oo yani 1 2 3 4 haduu diso option ka camal options ka roon baahannahay si yani input ahaan aan u isticmaalno taas oo naga caawina. So waxaan leenahay scanf. So scanf waxaan leenahay percentage d because percentage d waa maxay yeelay waa integer. Okay, haddii uu float number isticmaala percentage faa leedahay. So hadda waxaan sameynaa calaamad waxaan soo qaadanaynaa an ama loo yaqaano address. So inaan leenahay semicolon. Okay, hadda yani hadda intaan waxaan ku sameynaynaa yani si aan waxaan ku sameynayaa ma intaan fiirinaa compile ku sameynaynaa inuu programkan sax yahay in kale. Okay, waxa qalad ma lahan. So waxaan sameynaynaa output-kiisa fiirinaynaa. So ujeedin wuxuu soo dhigay press 1 for addition, for multiplication. Okay. So this is nothing. Okay. Hadda uu shaqeynaa output-keena. So waxaan leenahay waxaan isticmaalaynaa maadaama yani tusaale kale simple calculator maadaama dhahnay tusaale kale laba number isku diraynaa ama kala jiraynaa ama isku dhufanaynaa ama isku qaybinaynaa. So maadaama simple yahay yani wax complex ama wax badan isticmaalayna wax iska simple aan isticmaalaynaa. Meeshaan double ku waa toosan ka dhigaa saxaabta. Okay, waxaan sameynaynaa control F. So hadda meeshaan waxaan leenahay enter first number. So laba number hadda iska isticmaalayna sida tusaale kale number 1 iyo number 2. Okay, so enter the first number. Linkan copy ka sameysanaynaa. Okay, hadda paste yaa leenahay.
اوكي la soco asxaabta enter the second number so kan second number ka dhigana enter the second number so laba variable la soo qaadanayna oo kala isticmaalno first number iyo second number so waxaan leenahay comma number 1 iyo comma number 2 so labadana variable waxa ka dhiganay number 1 iyo number 2 so inta hadda waxaan leenahay number 1 hadda waxaan sameynaa in budahaan u isticmaalayna ama reading so scanf hadda dhahay scanf percentage d comma this of number 1 okay okay لأن كوديا كسميزين إن هذانا كلام بطلع إنه يستعملنا so كلي تستوعب كيف بدل ماشي وان كحمتو كلي so simple ساعات وأبو فوي هاي وsimple calculator سنابو استعمال السيلانجويت أنت بدل calculator كحلو استعمالها في بي سكريبت أما جافا سكريبت ما دوينك أو HTML كله أما سوا حلو استعمالها سي هاش وكله قصية الديزاينيك اللي هين فريم اللي استعمالها لكن سيلانجويت وحباس مرة اسكي بيسك بروجرام so هذا كان فهمتك وصل بدي كومات كانوا وكوفو أنا هذا حسميننا ما دام options بدنا عماشة عن حيثنا صاروا جديد option 1 إيه option 2 إيه option 3 option 4 option عن حيثنا option 1 هيستعملنا addition option 2 هيستعملنا subtraction إلا option كوكو ضمن استعمالنا division so ما دام options كلا دول استعمالنا program كا وخصوصينا multiple choice ولا خلاه جوز كعليه يعني أساو دينيسا متكاد يعني ما كان دونيس يعني multiple choice أنا استعماله statement استعماله selection statement so selection statement واحد if else nested واحد لها صحيح switch statement so واحد استعماله هنا switch statement so واحد لين switch نسوي هذا هنا so switch إنك استوى switch أنا عشرة تكوكس وسمع مننا لكن حد واحد استعمالنا switch statement so هذا ما دام n up الله استعماله option 1 option 2 option 3 that is why n وقاعدنا so خلينا هذا case 1 وحن كديجنا case 1 وحن كديجنا خلينا هاي case 1 وحن كديجنا case 1 وحن كديجنا صعبته addition so خلينا case 1 خلينا waxaan sameynaa meesha waxaan leeyahay variable labaad leeyahay oo resultigeena aan ku keensan so waxaan leeyahay result okay so waxaan leeyahay case 1 resultige wuxuu ku wada mid leedahay number 1 oo lagu daray number 2 okay so waxaan leeyahay meesha so meesha waxaan leenahay printf so meesha waxaan leenahay addition of two numbers is waxay kula mid tahay percentage d maadaama waxaan isticmaalayna oo number float yani number integer uu yahay oo decimal aanan ahayn waxaan iska isticmaalayna percentage d okay so comma leedahay meeshaas result okay macnaha result macnaha call function allah resultkaas hadhow meeshaas uu ka waxa soo yani oo soo نتيجة so case كان هذا مجال بعده كلي واحد لنا break stop break معنا واحد لا استعماله ماشي يكون جوج عمل case كان ولا معنا so case كان بعدين بنابينا so case to online هاي enter okay result كان لنا هاي وكل مت هاي 1 minus نقول minus number 2 ولا مت هاي اوكي خلينا اوكي بس تنسوا ده هنا بيبقى اصلا ماشي عنديش كواحد بدل هنا subtraction
okay so waxaan subtraction of two numbers is equal to type percentage e comma result okay so sidaas aan ku waday markii la case ugu dambeeya ka tagtid so case ka maadaama dhamaada breega leedahay meeshiisa ku jooji okay so case مثلا دي شيء أصحابتي يعني switch statement وحلو استعمالها options بدل مركز على هاي صار كله يتوضح يعني شركة بمدة كروح استعمال مركز يعني ثلاث كذا لحق شو بنيسيد ويقول لي ما option بدل كم option هي بالتك هو تسهيل لعبه وشرطي يعني واحد على حل أما اللعبة حساس سو قاب كاس وكله حلو استعمالها switch statement أوكي أما حلو استعمالها سيد selection statement يا شكل يتوضح سيد LSF so لكن the best one على الاستعمال هو switch statement option is one كله ده اوكي هذا حلينا رسلتي انه كانوا مدي حلينا هاي number 1 او لو استعملنا هاي number 2 so control في علينا كبعد بس مكان احنا سوق كوبينا ماشي اخذ بدلنا multiplication was going to show multi okay صحيح so statement يعني وضع معرض so خلينا هاي break ايش سكوت ماشي سكوت جوجي so احنا استعمالنا كيس كأول ضمن كيس نمبر 4 استعمالنا so كيس نمبر 4 محمد division أنا صارت أنا خايب سأتقانت division 1 or number 1 or option number 2 okay semicolon so statement كاستو أنا semicolon ضم بيسا يعني سيدا بناء بروجرام مركز استعمالي اسم حلاقة بيها ولا حلها يعني برانش معناه وحلها قيبتان أو يعني لو كان logical كسيدا تصالك للloop statement أو selection statement يقيب كلا واحد جرت أيضا الله نحو كلا كان coverage يقيب كلا statement الله so statement واحد لا تصالح كلا تم print f تاسو كلا statement result column هاي number 1 minus number 2 تاسو statement okay قيبت logical كبرنت يلا كنا قيبت statement ولا statement لبعض الأسكود ده واحد الأسكود coverage so بالكان كنا سيد أحد سوق كوبين so خلينا نكمل فيه اوكي ماشي كي ود البيوا وخلينا هاي division اوكي division of two numbers is equal to percentage دي result اوكي switch statement وانا بريس كانت فتاحة دينا قيبتو ضمبيسو وانا بالبريس يكلوز بريس ميسا كان ما دام قيبتها قيبتها يعني decision أو selection يعني شغل مسحوطه هنا برايكت كاسي برايكت كان وعينه ولا شيء ما فهمتي هذا برايس وعينه ولا حاجة فهذا خصمينا كومبايلر وزمينا واحد قلب إنه وجرين كلف أوكي كومبايلر سمينا أوكي قلب ما لسه وجرين كاس أوكي هذا خصمينا و أنا كله فنينا أوكي سأجيد نبغى قلنا هاي برايس 1 for addition Press 2 for subtraction and press 3 for multiplication and كأول ضمن division. هذا استعمالنا كلاطات 1 استعمالنا أو addition. So enter the first number. So first number كدينا نتصالح كرشان and the second number كدينا نتصالح كرشان. So عشان خلاص عشان نقول addition كده و 8 يكون مقنع. Okay وكان نسوي جديد addition of two numbers is بيكون 10. Okay. option كمان استعمالنا هو subtraction so option كي اللي هو حلقة صارت كده السي سام بعدنا okay second number كي يروح على هاي 2 so محين نغنى كأنسى 4 so 6 minus 2 و 4 okay option كا سدحانا سمينا multiplication كده so حلقنا هاي option 3 option كي سدحانا نغنى enter the first number تصالح كده حنقلنا 0 okay number كلا عندك بعدنا صار كمان صورت أول بعوض نمبر كسادي سير اللي قلت يعني وش سير ويكون عاد سير إنه غير زمان. واو خلاص وسمي مش يعني multiplication of two numbers is what we mean to بعض الإصدار. واو خلاص مش أسكت. number 3 خلاص كجلسة.
اوكي markana meeshan equal laga doonaa meeshan ma fahamtay ku celinaynaa asxaabta samaynaynaa number 3 oo multiplication ku celinaynaa soo waxaan leenahay 0 oo lagu dhuftay 100 soo in 0 soo baxay hadda waa kaas ah multiplication of two numbers wuxuu kula mid tahay dhahay waa 0 hadda uu saxay soo ka ugu dambeeya division ka ku dhufanaynaa soo division ka ugu dambeeya waxaan leenahay plus for 4 first number waxaan ka dhiganaynaa tusaale kale 10 second number waxaan ka dhiganaynaa tusaale kale 2 soo 10 hadii loo qabto laba maxay noqonaysaa 5 okay division of two numbers waxay kula mid tahay 5 soo asxaabta simple calculator sida loo isticmaalo adoo yani using C language waa simple calculator waxana multiplication addition iyo subtraction iyo division waa afar xisaab basic asxaabta ka faa'iideysi wanaagsan channelka dadka cusub tahay subscribe si aad ula socoto casharada soo socdo gambaralkana taawo yani cashar xilligii la soo dhigo suuq ugu soo dhaco soo asxaabta waan idin jeclahay waan idin salaamay bye bye